runtii dhalinyarada Soomaaliyeed ma u maleynaayo doorashooyinkan hadda socda inay door muhiim ah ku yeelan karaan sababtoo ah doorashadan waxay ku dhisan tahay doorashadii oo ahayd 4.5 ama qabiilada ku dhisneed doorasho qabiilo ku dhisan maadaama ay tahana qabiil kasta xildhibaankiisa wuxuu ku soo dooranayaan yacni odayaal ama beel dhaqameed wax la dhaho maadaama saas ay jirto dhalinyaradii ay ka horeeyaan odayaasha doorashada uga horeeyaan ma u maleynaayo doorashadan dhalinyarada inay wax muhiim ku yeelan karaan wallahi hadda waqtigan taagan oo waqti xaadirka ah ima muuqdo ifafaala kaalin ay ku yeelan karaan laano wixii waxa weeye bedel odayaal meeshii shalay ay doorashadu ay ahaan jirtay odayaal dhaqameed ay soo xil jireen ergooyinka maanta waxa soo xulayo waa yani nidaam u dhow waa waxa soo xulayo ergooyinka waxa soo xulayo maamul goboleedyo marka maamul goboleedkii asaguna wuxuu ku soo xulaya kriteeriyadii hore ee ahayd 4.5kii ama qabaa'ilkii ah ayuu ku soo xulaya dhalinyarada waxaa la gudboon dabcan in ay midoobaan ay mataqaanaa unit ee noqdaan ay u midoobaan muxuu ahaa far kaliya ee noqdaan ayagoo aan isku fiirinaynin gobol ayagoo aan isku fiirinaynin muxuu ahaa qabiil iyo qabyaalad ayagoo aan isku fiirinaynin haddii la helo dhalinyaro mideysan oo ka mideysan afkaar haddii la helo waxaa waaye cid hor istaagi karto iyo cid mataqaanaa xuquuqdooda ka hor istaagi karto ama cid shaki gelin karto matalaadooda waxaa waaye ma jiri doonto dhalinyaradu fursad ha helaan dhan walba hadday ahaan lahayd dhanka mudanayaasha baarlamaanka iyo hadday ahaan lahayd xukuumadda ra'iisul wasaaraha iminka soo socota oo inta badan laga helo caqabado ah in nin baarlamaana uu haddana wasiir noqdo taasina waxay noqonaysaa nin laba teetal isku haysta iyadoo ay shaqo la'aan banaani jirto dad badan oo aqoon-yahana oo dalka ku nool oo derbiyada fadhiya ay jiraan waxaa suurtagal ah in nin isku haya 3 jago ama 2 jago isagoo ah xubin baarlamaan inuu haddana wasiir yahay sidaa darteed waxaan leeyahay arrintaasi waa arrin dalka caqabad ku ah haddii waaqica dhabta lagu hadlo Soomaaliya way adag tahay in la xaqiijiyo wax kasta oo hadaf maxaa yeelay challenge-yadu waxay ka badan yihiin opportunitiska marka haddana inaan waxba la xaqiijinay mararka qaar ka fiican tahay in wixii haaf la xaqiijiyo waxay la tahay aniga in abaabulo badan la galo dadka la wacyigeliyo dadka siyaasadda ku lugta loo sheego in dadkaani ay u baahan yihiin matalaad rasmiya sababtoo waa qaybta ugu badan bulshadu meeshay u badan tahay inay matalaad ku hesho waa waxa kaliya dawladnimadu ay ku dhismi karto ضميركو انتانو ديما دوكينا دفاع عليه دليل يا رويكا